madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in uu ka shaqayn doono ilaalinta ammaanada qaranka, soo celinta cadaaladda iyo wax u qabashada dadka baahan. waraysigii ugu horreeyey ee uu bixiyey oo uu siiyey idaacaddan VOA ayuu ku sheegay madaxweyne Farmaajo in hawshiisa ugu horreysa ay tahay soo magacaabista ra'iisul wasaare soo bandhiga qorshaha shaqada ee dowladda. Falastiin Axmed Iimaan ayaana waraysigaasi gaarka la yeelatay. بسم الله الرحمن الرحيم horta waa ku salaamay adiga iyo guud ahaan shaqaalaha idaacadda Voice of America dadkayga dhageysta. waxay ahayd maalin weyn muujiyeen xildhibaanada sharafta leh doorashadii muddo dheer la sugayay inay soo gabagabeyday ayna ku dhamaatay si waxaan ku dhahdaa nadiif ah oo hadee aanan inaba hayaat shaki gelin ayna ka dhacday wax la yiraahdo power transfer of power ka dhacday aad iyo aad aan ugu faraxsan arrintaas isbedelka oo lagu doortay. madaxweyne dadka Soomaaliyeed si weyn u soo dhaweeyeen doorashadaada. wali waxa socda meelaha qaar isku soo baxyo iyo dabaaldegyo ay dadku sameynayaan. meelaha sida gaarka loo eegayo waxa kamid ah magaalada Gaalkacyo oo culaade ay muddo ka jirto oo labadii dhinac si isku mid ah ay ku soo dhaweeyeen. dadku rajo badan ay qabaan. ma ka cabsi qabtaa in rajadaasi ay tahay mid adag in laga soo baxo? horta taas waxay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed waa dad walaalo ah, waxbana aan ku kala duwanayn, laakiin siyaasado hoose oo aan meel fog jirin ay lagu kala qaybiyey. marka taas tusaale waxay u tahay runtii dadkaani inay nabad rabaan, inay wada noolaasho rabaan. waana u mahadcelinayaa runtii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogaan oo dee taageeradaas weyn muujiyey. dabaaldeg badan baa dhacay ilaa shalay ilaa caawa. waxaanse leeyahay dabaaldegaas waqtigiisa waa dhammaaday, kambeynka waa dhammaaday. hadda waxaa loo soo baxayaa waqtigii shaqada ee dowladda ay qaban lahayd oo ay ka rabto taageero. waxaan kaloo u mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida oo runtii qayb weyn ka qaatay inay nabadgelyo ilaaliyaan. waqti hadda waxaa la joogaa oo loo baahan yahay in la joojiyo bannaanbaxyadaas iyo dabaaldegaas oo loo soo jeesto shaqo, laisuna diyaariyo dalkan dib dhiskiisa, laiskana kaashado wax kasta oo loo baahan yahay dalkan in lagu istaajiyo, laguna socday nabadgelyadiisii oo hore u lahayn jiray. marka muxuu yahay madaxweyne qorshahaaga 100 maalmood ee soo socda? qorshahayga 100 maalmood wuxuu yahay horta kow aan magacaabo ra'iisul wasaare. ra'iisul wasaarahaasaa laga rabaa inuu keeno qorshaha 100 maalmood, laakiin aasaasku wuxuu yahay dowladdaas oo qof walba oo kamid ah uu qaadan doono waxa la yiraahdo core values oo aasaas ku ah koowa ammaanada, in ummadda Soomaaliyeed ammaanada aan u hayno, aan u ilaalino. 2 dalkan wuxuu ku kala tegay cadaalad darro, in cadaaladdaas aan xoojino oo qof walba xuquuqdiisa uu helo. tan saddexaadna runtii abaaro badan iyo dhibaato badan iyo fakri badan ayaa jira, inaan isku dayno inaan dadka Soomaaliyeed masaakiinta ah ama saboolka ah gacan la siiyo oo nolosha adag ay ku jiraan wax lagala qabto. hore waxaad u jiray dowladihii dalka soo maray mudane madaxweyne in muran iyo khilaafaad u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uu jiray. adiga laftirkaaga mid kamid ah muranadaasi inuu ku soo maray. maxaa uga hortagaysaa in dowladdaada aysan waqti uga lumin isjiijiidka marka ugu dambeeyana baarlamaanka ku dhamaada iyo xilka qaadista? slogankeena ahaa danta dalka iyo dadka macnihiisu waxay tahay anigu personal agenda malihi, dan shaksi aan leeyahay malihi, ma jiraan. macnaheedu waxay tahay haddiisa jirin dan shaksi ah, danta guud laiskuma qabto. waa lais qabtaa, laakiin waxaa laisku qabtaa feker ama waxaa laisku qabtaa shaqo. taasna dee 2 qof keliya ma dhex marayse dadka wax wada wadaago oo tiimka guud ahaan hawsha ku wada dhex jira yaa la rabaa in ay keenaan fekerkaas laisku haysto wax ka fiican. laakiin inta badan khilaafaadka waxaa keena waa dan shaksi ah. anigana waxaan isku dayayaa in dadka aan la shaqeeya ka fogaadaan danta shaksiga ah, ay usoo baxaan danta caamka ah. maadaama dalkaanu burbur muddo dheer ku jiray, haddii laga shaqeeyo dan shaksi ahna uusan dalkan istaagi karin. hore waxaa usoo noqotay mudane madaxweyne ra'iisul wasaare. waxyaabaha dadka ku taageersan
ay kugu jecel yihiin ama ay ku sababeeyaan taageeradooda waxaa ka mid a madax bannaanida maamul iyo siyaasad ee wakhtigaasi aad ra-iisul wasaaraha ahayd aad samaysay go-aankii aad hay-adaha qaramada midoobay ku weydiisatay inay dalka ku soo laabtaan oo ay gudaha dalka ka shaqeeyaan taageeradaadii ciidamada xoogga dalka iyo inaadan siyaasadda etoobiya ku dhoweyn dhabahaasi lagugu yaqaanay maxaad ka bedelaysaa maxaadse kusoo kordhinaysaa adduunku waa isu baahan yahay dowlad gaar u istaagnaan karta ma jirto laakiin waa xaqiiqa markaan lahaa qaramada midoobay soomaaliya ha soo galaan ujeedadeedu waxay ahayd lacagta bilyanka ama 2 bilyan gaaraysa oo nairobi lagu kharash gareeyo in soomaaliya la keeno si dadku ay shaqooyin uga helaan ama kontraadyo uga helaan marka labaadna haddee UN-ku ay muujiyaan soomaaliya inaysan ahayn sida laga dhigaye aysan lamid ahayd marka anigu aan jooga afghanistan iyo ciraaq oo aan ogaa inay ka shaqeynayeen marka waxay muuqatay in soomaaliya ku khasban yihiin inay soo galaan shaqadii laga rabay inay qabtaan ay ugu soo dhawaadaan dhaqaalahana ay keenaan marka haddee anigu waxaan fiirinayay mar walba aan ka shaqeynayay danta dalka oo anigu markaasaan mas-uulka ahaa haddana wax iska kee bedela ma jiraan waxaan u taagnahay danta dalka iyo dadka qof walba oo soomaali ahna wax laga rabaa inaysan u arag inaysan shaqo u arage ay u arkaan wax maaragtay inaysan u arag macnaha waxay ka shaqaysanayaan ay u shaqeeyaan aysan ka shaqaysan macnaha saasaan ka wadaa wax ka weyn inay tahay waxa meeshaa noo yaal wax ka weyn shaqe inay tahay ugu dambeyntii inkastoo aad tahay madaxweyne soomaaliyeed haddana waxaa tahay muwaadin maraykan ah dalka soomaaliya wuxuu ka mid yahay wadamo 7 ah oo madaxweynaha cusub ee dalkan maraykanka Donald Trump uu ku daray inaanay dalkan soo geli karin muwaadiniinta ka soo jeeda sidee u aragtaa go-aankaasi maxayse dowladdaadu ka qabanaysaa insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan jeclahay arrintaasi inaan kala hadlo dowladda maraykanka cusub oo hadda timid waxaan isku dayayaa in go-aankaas laga noqdo bacdama soomaalida degan maraykanka ay yihiin dad shaqaysta oo wadanka wax ku kordhiya dhibka qolooyinka nabadiidka ah ay noo geysteen keliya ma aha gudaha soomaaliya oo maalin walba isku qarxinayaan dad masaakiin ah caruur iyo dumar iyo cirhoole leh ay baabi'inayaan hanti weliba dhibkooda u gaaray xitaa in adduunkii aan la noolaan weyno marka waxaan ku khasbanahay inaan sidaan uga dhaadhicin lahaa falankeeda galo si nalooga saaro liiskaas kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee soomaaliya ee dhowaan la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu khadka taleefonka ee magaalada muqdisho ugu waramayay wariyaheena falastiin axmed iimaan halkaad kala socoteenna waa